taliska booliska Soomaaliya ee gobolka Gado oo soo saaray digniin ku aadan dadka u xukun doonta al-shabaab. Taliyaha ciidamada booliska degmada Baardheere ee gobolka Gado ayaa soo saaray amaro ku socda dadka garsoorka u doonta maxkamadaha al-shabaab ee ku sugan deegaano ka tirsan gobolka Gado. Taliyaha saldhigga booliska degmada Baardheere gaashaan Cabdi Sheekh Xasan Cilmi ayaa sheegay in laamaha amniga degmada Baardheere aysan marnaba u ogolaan doonin in dadka ay maxkamadaha al-shabaab ay u xukun doontaan. waxa uu sheegay taliyaha in al-shabaab ay yihiin urur dagaal kula jira dawladnimada Soomaaliya isla markaana cid kasta oo la shaqeysa sidoo kalena u xukun doonata ay la mid yihiin al-shabaab ayna la dagaalami doonaan. ugu dambeyn taliyaha booliska degmada Baardheere gaashaan Cabdi Sheekh Xasan Cilmi ayaa sheegay in ciddii fulin weysa amarka ka soo baxay booliska ee garsoor u doonta al-shabaab deegaanada ay ku sugan yihiin ay tallaabo sharci ay ka qaadi doonaan. amarkan ka soo baxay taliska ciidamada booliska degmada Baardheere ee gobolka Gado ayaa waxa uu ku soo aadayaa xilli inta badan la sheego in dadka ku sugan meelaha dawladda Soomaaliya ay maamusho ay garsoor u doontaan goobaha al-shabaab ay maamulaan.